waxaa igu wallaahiya oo igu billaahiya in aan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh in aan dhex u ahaado xisbiyada ururada iyo murashaxiinta sharciga cadaaladana aan ku shaqaynayo qof waliba dhaarta uu markii uu albaabka soo gelayay iyo imika uu ka baxayo culayskii dhaarta uu ku qaadanayo garbaha inuu ilaaliyo oo ilaaliyo si Ilaahay ku og yahay waayo godka waxa kula gelaya amalkaaga xisbi kula gali maayo urur kula gali maayo murashax kula gali maayo inaadeer kula gali maayo inaadeerku isaga baa odhanaya war meedka aasoo dedejiya marka horta taa weyn aad ogaataan wali dhaartaan marayna waa la wada garanayaa khatarta ay leedahay hadii laga baxo marka qof walba marka uu hawl qabanayo oo hawsheena dedanteena dhamaanteena inaynu qof walba dhaartaa u marayna qalbiga ku hayo aanay noqonin mid laga baxo halkan adduunyo aakhiran mana hadii aad sideeda uga soo baxdana aakhirana waad ku liibaanaysaa adduunkana waad ku liibaanaysaa wixii la isku ogaabaad ka soo baxday shaqadii lagu daraa sideeda u qabatay hadaad ka baxdan labada waad ku khasaaraysaa marka qof walba waxaan soo jeedin lahaa dhaarta khatarteeda ay leedahay qof walba inaad qalbiga ku hayso inkaad shaqada qaranka hayso waxaa igu wallaahiya oo igu billaahiya in aan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh in aan dhex u ahaado xisbiyada ururada iyo murashaxiinta sharciga cadaaladana aan ku shaqaynayo billahi tawfiiq waxa ugu horeeya oo ay maanta gudageli doontaan sahamintii goobaha doorasho isku sidkanaysa saaran bay qabanaynaa sidaad shalay tole la socoteen saddexdii xisbi qaran ee hore iyo 7 urur siyaasadeed oo 10 isku noqonaya ayaa ka qayb galaya doorashada 2 ballot paper bay yeelanaysaa haddii 10 ka urur 10 muraaqib soo dirtaan iyo xisbi goobtii waxa ka howlgalaya 10 wakiilada xisbiyada ah iyo 4 ama 5 qof goobaha qaarna shabak ka howlgali doona qaarna 4 baa komishiga ka howlgali doona ay dheer yihiin qoladii observerska ah waxa laga yaabaa inaynu u baahno 20 qof meel ay fadhiisanayaan iyo kuraasta iyo miisaska ay ku fadhiisanayaan waxa la idinka baahan yahay muddada sahaminta in aydu si qoto dheer oo ka fiirsasho leh aydu hawsha u soo samaysan waliba magaalooyinka oo ah meelaha ugu muhiimsan tirada dadkuna ay aad u korodhay waayo doorashadii ugu horeysay 700 kun baynu ku galnay 17kii markii dambe 1 milyan baynu ku galnay milyan iyo 200 baynu maraynaa goob kasta waxa laga yaabaa intii 17kii lagu galayna imika laba jibaarantay oo tirada sanaaduqda la dhigaya ay ka badatay intii hore marka waxa la idinka doonayaa inaynu si gaar ah aad iskaga saartaan xil arrintan kan de tababar baa ka qaadateen tababarkaas waxa weeyaan de wixii aad ku shaqeynayeen baa la idin baray waa la idin daariyay oo kitaab baa la idin mariyay doorashadana waxa asaasi waxa la dhameeyay kulli hadalka intiisii badnaa oo da shaqadana aad u yaqaanay commissioner Saciid baa dhameeyay anigu waxaan idin kula talinayaa kitaabka horta aad marteen ina sidiisa ugu dhaqantaan oo commission ahaan aad ku matashaan oo idin reer ku matelin oo idin xisbi ku matelin oo aan kala jiidasho idin ku dhicin oo aad tihiin shaqaale u shaqeeya commissionka iyo danta qaranka dadkeenu waa ogtihiin oo waxa kala qaybiyay waa qabyaalada in ay idinku ka madnaataan oo aan noqotaan garsoorayaashii dhexdhexaadinta ee dadka tartamaya waxa matashaan commissionka ma matashaan qolo ma matashaan xisbi taas waa taa waxa ku shaqeynaysan inuu noqdo xeerka talaabo kasta oo qaadaysaan waa in xeerka ku shaqeysaan wajiye badan baan xasuustaa kormeeradii aanu labadii hawlgalay aynu sameynay aanu ku soo marnay goboladii degmooyinka waxa jiray 2 degmo aanan anigu tagin oo aanu maanta isku cusubnayn kasto aanu isku aragnay gobolka heer gobol marka horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad waxaan idin leeyahay waxaan rajaynayaa insha Allah tababarkaasi inuu mid mara dhala noqdo oo shaqada aad qabanayseen uu kor u sii qaado idinkoo aad u badan tihiin dhamaantiin inaad soo shaqayn jirteen
intii doorashaba ay jirtay marka xagga aqoonta iyo waayo aragnimada loo biqi maayo xagga u dhimatay loo baqaya waxa weeye qof waliba dhaarta uu markii uu albaabka soo gelayay iyo imika uu ka baxayo culayskii dhaarta uu ku qaadanayo garbaha inuu ilaaliyo oo ilaaliyo si ilaahay ku ogyahay waayo godka waxa kula gelaya camalkaaga xisbi kula geli maayo urur kula geli maayo murashax kula geli maayo inaadeer kula geli maayo inaadeerku isagaaba odhanayo waru meydka aasoo dedejiya marka horta taa weynaad ogaataan dardaaran ahaan badankii toddobadeedan baa lasoo eegaa oo la yihahdaa masiirkii ummaddu idinku idi saaran yahay maanta annaguna waxaan leenahay masiirkii ummaddu maanta idinku idi saaran yahay goob kasta gobol kasta iyo degmo kasta sida aad idinku marka hore u sahamisaan sidaad u nadaamisaan shaqaalahan dhalinyarada idin imanaya sidaad u soo dhaweysaan sida aad ugu ilaalisaan shaqadooda iyo sharciga ayuunbay doorashaduna ay marka dambe u dhacaysa marka horta odayaal waaweyn baa muxuu ahaa oo soo shaqeeyay baa idinku jira dhalinyaro idinku jira haweenku idinku yar yihiin shaqadani waxay noqonaysaa shaqo aad iyo aad u culus oo u baahan alla ka cabsi oo u baahan in saxar aynu saxar tirno oo wixii inaga imanaya mar walba aynu ka hortagno oo aynu la tashano isla tashano hadday yihiin komishineerada gobolada idin imanaya iyo hadday yihiin cid kasta oo shaqadeena saameyn ku leh